aad baad u mahadsantahay walaal xasan. Sharaf bay ii tahay inay igu casuumtaan barnaamijkaaga. Waa barnaamij muhiim ah oo mar walba xogaha iyo dhacdooyinka siyaasadda dalka ka jira aad faahfaahin ka bixisaan bulshadana u gudbisaan. Sharaf bayna ii tahay maanta inaan idiin imaado. intaas kadib waxaan ahay xogayaha guud xisbiga isbahaysiga mustaqbalka. annagana waxaanu nahay xisbi u taagan mar walba midnimada iyo sharciyadda dalka. hadda maalmahan dambe waxaan aragnay in wixii dalkan mideynayay oo ah dastuurkan ku meelgaarka ah oo qabyada ah in meel la iska dhigay oo madaxweynaha iyo madaxdii maamuladii gobolada barnaamij siyaasadeed la yimaadeen ee ku inqilaabayaan dastuurka dalka u yaala. waxaanu rajo ka qabnay in mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ay noqdaan kuwii u taagan sharciyadda iyo difaaca dastuurka. sharcigaana inay laadaan ay diidaan nimankan samaysteen maanta sharciga ka dhigeen baarlamaanka, laakiin markaas wuxuu ahaa kaliya heshiis siyaasadeed oo la rabay in la xalaaleeyo. ayaan daro shalay baarlamaankii sharci darrada ay xalaaleeyeen, ayagiina waxay noqdeen niman ceebeysan iyo naaga ceebeysan oo meesha ku jira u taagan danahooda una taagneyn danaha dalkan. marka aad baan u cambaareynayna, waana ka soo horjeednaa, waana ka niyad jabsanahay runtii Soomaaliya inay noqoto dalka Soomaaliya inuu noqdo dal sharci ku dhisan, sharaf leh oo horay u soconayo. waa gartay sharciga la jabiyay sheegayso muxuu yahay? sharciga la jabiyay waxaa ka mid ah horta dalka wuxuu leeyahay dastuur. waxaa ka mid ah marka sharciga la jabiyay sharciga xeerka xisbiyada. waxaa la jabiyay dhismaha guddiga madax bannaan doorashada oo tiir kale dastuuri ah oo baarlamaanka Soomaaliya ansixiyay. waxaa kale mid ah xeerka doorashada madaxweynaha saxiixay, labada aqal soo ansixiyeen loo gudbiyay. waxaasoo dhan waxaa la yidhi kama jiraan weeye, niman qol madaxtooyada isku aruuriyey baa siyaadadii dalka gacanta ku dhigay. ayaan darada ugu weynna waa mudanayaasha iyo baarlamaanka Soomaaliya inay ku raacaan ayadana. waxyaabaha ugu muhiimsan la tilmaamayo waxaa qayb ka ah in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay u turtay guud ahaan dadka iyo dalka ay ka tanaasuleen aragtidooda ee doorasho qof iyo cod xisbiyadu ay ka qayb gali karaan. kulamo dhowr soo socday Dhuusamareeb 1 2 3 ugu dambeyntii Muqdisho lagu dhameystiray heshiisyo is-afgarad la gaaray. baarlamaankana ay u arkeen wanaag inay tahay in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo. maxaad ku diidanaysaa? horta waxaa weeye Dhuusamareeb iyo waxa ka socday waan diidaneen. waxaana caddaatay inay noqotay goob oo waxba ka soo bixin. maxaa yeelay 3 kulan baa ka dhacay, intaasoo qarash baa ku dhacay oo juhdi la geliyey. haddana waxaa la yidhi waxba kama jiraan, heshiis kale cusub baa xamar lagu samaystay. marka Dhuusamareeb waa tacab lagu khasaaray wey iyo qarash iska baaba'ay bilaa macno u baaba'ay. waxba kama soo bixin dee Dhuusamareeb. maadaama waa la diiday heshiis cusub oo siyaasadeed baa xamar lagu sameeyey. wixii Dhuusamareeb meel naga dhigaa la yidhi mid cusub baan samaynanayna. midda kale madaxweynaha markuu leeyahay dalkii midnimadiisaan u tiray been buu sheegaya. wuxuu u tiray male, dantiisu u tiray. hadafku kaliya leeyahay waxaa weeye inuu meesha kusoo laabto rabaa. xil kororsi buu raadinayay. waxaasoo dhan buu arrimahaas u sameeyey. haddana ma naqaano inuu heli doono inuu helayo. kolley waxaan rajaynaynaa in ummadda Soomaaliyeed maadaama maanta dalka galay sharci darradana maanta waxaa ka mid ah shalay codbixintii naftigeedii waxaa la codeeyey golaha baarlamaanka, golaha shacabka waxaa la codeeyey aqalka sare. aqalka sarena qodobka dastuuriga waxaa weeye la codeyn karaan baarlamaanka waa markii la dooranayo madaxweynaha. shalayna sharci darro kale oo qof kasta arkayo oo si bareera loo sameeyey. xitaa waxay sugi waayeen in loo gudbiyo aqalka sare oo soo ansixiyo oo ku soo celiyo baarlamaanka. marka waad u jeedaan dalkeena wuxuu galay qaab fororsi sharci buu galay. aniga xaggayga maanta magac ahaan iyo sharci ahaan maanta madaxweynena ma qabno, dastuurna ma qabno, baarlamaanna ma qabno. runtii haddii si lilaahi loo hadlayo kooxdan leeyahay dalka gacanta ku dhigatay. kooxdan leedaasna barnaamijkooda siyaasadeedna shalaa loo xalaaleeyay, baarlamaanka u xalaaleeyay. wixii dhanba marka qabbaa la isku siiyey. hadda meesha loo socdo waa arki doonaa, laakiin kolley dalkan madaxweynaha dastuuriga ee hay'adaha dowladda xilli ayuu ku egyahay. doorashadan waxaa la tilmaamay qodobadii lagu heshiiyay waa ay ku caddahay. maxaad u diidantiin mar haddii doorashada qabsoomideeda ay caddahay? qaab baa lagu tagayaa. dalka sharciyad iyo dastuuri wax buu leeyahay. rabitaanka shakhsiyaad oo danahooda gaarka ku wato looma tuuri karo.
xataa haddii waxaan sameynayeen waxay ahayd inay nidaamka iyo dastuurka iyo waxyaabihii tartiibtooda waxay u bedelaan bay ahayd laakiin maadaama waxaa jira waxa ingiriiska dhahaan culture of impunity waxay rabaan baa la kala tuuranaya baarlamaanka ugu horreeya la kala tuurayana ma aha baarlamaankii sagaalaad sidaas oo kale loo kala tuuray madal baa la dhisay maantana si dadban madal kalaa la dhisay magacii madal unbaa laga qarinaya laakiin madal kale waaye oo ku midaysan madaxdii maamul goboleedyada iyo madaxweynahan hadda oo sharci dejinta ma aqaano sidaa waxaan ku sifayn karo runtii madaxweynahan oo u bareera mar walba ku tumashada sharciga dalka yaalla waa gartay madaxweynuhu waa uu hadlay waxa uu tilmaamay in danta guud ee dalka iyo dadka uu u tanaasulay aragtidiisina uu ugu tanaasulay si loo badbaadiyo dadka arintaas maxaa ku diidan tahay mar haddii madaxweynihii uu anaga uma aragno madaxweynahan intuu joogo dalkan waxaa ka dhacay qaraxyadii ugu badnaa ee Soomaaliya soo martay intaasoo kumanaan oo Soomaaliyeed marka wax turaayo waa hore u turi lahaa wasiirada oo mas'uuliyadda lahaayeen iska saari lahaa meesha iskaga fadhiyay waxaa weeye meeqa jeer baa hay'adihii amniga laga bedelay madaxweynaha nin oo u turaayo qaranka ma waa nin u turaayo daliilkiisa gaarka waa gartay ambassadore xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dalka ee diiwaan gashan hogaankooda aad qayb ka tahay mar haddii doorasho la aadayo oo noocay doontaba ha ahaatee doorasho dadban la aadayo waqtigeedana ay ku dhacayso sow ma ahayn adinkuna inaad taageertaan doorashada iyo qabsoomideeda oo aad waqti kale iyo fursado kale aad sugtaan maadaama sharciyadiina qaarkood baarlamaanka ay ansixiyeen qaarna weli aanay meel marin anaga maadaama aan leeyahay dalka sharciga ku socdo danley siyaasadeed oo dalka ka mid ah waxay dhahayeen dadkan xisbiyadan waxay rabaan xil kororsi dadban inay u raadiyaan farmaajo waana wax beenta ka fog maanta gudoomiyaha guddiga madax bannaan doorashada baarlamaanka ee hortagtay waxay codsatay muddo oo wax lagu qaban karo oo caddaysay 9 bilood iyo 13 bilood soo ma waxaa la dhahayay xil kororsi buu farmaajo ku raadinaya isla maanta jid meeshii la taagan yahay maalin dhoweed waxaan maqlaayay madaxdan maamuladan qaar ka mid ah ay dhahayaan 9 bilood sanad waa laga yaabaa in la gaaro marka hadday saas tahay maxaa loo wada futogadiyey wixii sharciga dalka u yaalay maxaa loo yiri guddi madax bannaan ma jiro mid kale la keenaya maxaa loo yiri xisbiyada wax shaqay ku leeyihiin male annaga waan ogsoonahay dhaliisheena waa leenahay annaga xisbigeena ka soo qabo bishan July luulyo kowda luulyo baa aqoonsi rasmi helnay awalna waxaan ahayn urur iska abaabulan laakiin xisbiyo 4 sano jira baa jooga meeshaan marka ayagiina kaalintoodii sida la rabay uma qaadan bulshada ma aysan u galin حتى وحالة سمية شرع الدراسة ذلك كجرت وحاوي حزبيكم الجارة على سمية أدون كمجرى حزبيكم الجارة وحاوي أما ولا سيا غوصية أما ولا مصي ولا قال لا بتاع حديت ترى كبتين حزبية أنا وحال الله سمية هب روك على حرو يا أما شرعي على سو سمية أما وحال سمية عد بحياشة مركل عدين أيوبا تردي حزبي كيني ويا حزبي قرنبون غنا كي كيني ويا نوجيدا حزبي نقول مايو kii keenana wuxuu noqonayaa de baarlamaanka uga lahaa xisbi qaran buu noqonayaa marka siyaabo badan baa lagu kala bixi karay laakiin waxaa iska cad in la diidan yahay nidaam dimuqraasi iyo rabitaanka dadweynaha meesha inay ka muuqdaan dad boo mar walba danahooda ay u afduubnaanaya dalkan